بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مركل كلام وناكسن كسر دوادا برنامج كني دبك هذا برنامج كان وحن كأذينا دكان يا مقالة كسمايو سيد الله سعطان مدو طوان بلاد كهرة وحال الدورتين مدحوينها مامول كجبلان كدب دور شكل عضي مقالة كسمايو حرونتكم الجارك مامول كجبلان وحنا الله شاقين دور الشاس وكوجول استي مدحويني هراء جبلان أحمد محمد إسلام inkastoo ay jireen siyaasiyiin ama musharaxiin kale oo aan ku qanacsanayn doorashadaasi Axmed oo iyaguna dhinacooda sheegay in iyaguna la doortay oo madaxweynayaal yihiin dawladda federaalka Soomaaliya waxa ay iyadu oo dhinaceeda dabcan kula jirtay dagaal culus Axmed iyo maamulkiisa waxa ay sheegeen in aysan aqoonsanayn wixii halkaas ka soo baxay isla markaasina uu baadil yahay saddex madaxweyne oo meel ka soo wada baxdayna aysan macquul ahayn in la aqoonsado si walba ahaataba dadaalo dheer kadib madaxweynaha Jubbaland oo ahaa Axmed Maxamed Islaam iyo golihii isbedel doonka madaxdoodii waxay ku shireen magaalada Nairobi waxa ayna halkaas ku kala saxiixdeen heshiis rasmi ah oo ay ku sheegeen inay ka heshiiyeen arrimihii ay isku hayeen sidoo kale waxay sheegeen in ay ka heshiiyeen arrimihii doorashada isla markaasina ay ku qanceen hogaamiyaasha isbedel doonka oo saddex xubnood markaasi ka koobnaa in Axmed Maxamed Islaam uu noqdo 4 sano ee soo socda madaxweynaha Jubbaland wixii ka dambeeyana doorasho loo dhan yahay la qabto dawladda federaalka Soomaaliya iyadu sheeda ayay ka eegaysay waxaas oo dhan ma aysan ka hadlin isla markaasina waxa loo arkayay in ay waliba ka soo horjeedo heshiiskaasi inkasta oo ergeyga aan iraahdo midowga Afrika u qaabilsan arrimaha Soomaaliya ee AMISOM u qaabilsan Francisco Madera mar uu ka hadlayay shirka golaha ammaanka ee qaramada midoobay uu sheegay in heshiiska ka dhacay Nairobi uu ahaa heshiis u dhaxeeyay hogaamiyaha Jubbaland iyo niman ay isku reer yihiin hadalkaasi ka soo yeeray Madera waxa loo arkayay in filla Soomaaliya ay ka dambayso si walba ay ahaataba geesta kale waxa ka socday dagaal ay dawladda federaalka ka jirta gobolka Gedo oo halkaasi la sheegayay inay ka jartay maamulka Jubbaland ee Axmed hogaamiyo gobolka Jubbada dhexe iyadana ma uusan gacan ba ku jirin laakiin Axmed iyo maamulkiisa waxa isugu soo haray degmooyinka gobolka Jubbada hoose si walba ay ahaataba haatan oo waddanka Soomaaliya uu ka jiro xiisad siyaasadeed oo la xiriidha arrimihii doorashooyinka waxa saaka mar aysan wali garoonka diyaaradaha ka dhoofin waftigii madaxweynuhu hogaaminayay ee ka qayb galay shirka wada hadallada ee Djibouti waxa la soo saaray oo filla Soomaaliya ka soo baxday warqad lagu sheegayo mowqifka dawladda federaalka ee ku saabsan arrimaha doorashooyinkii ka dhacay Jubbaland iyo xaalka haatan ay ku sugan tahay bal hadda jaamacu soo dhawow warqadaasi ay soo saartay filla Soomaaliya Jubbaland ku saabsanayd maxaa ku qoran maxaa ku soo aadiyay inay xilligan la soo saaro warqad noocaas horta warqadaas waxa ku qoran wax hadda maartay si buuran ma aha way kulay waxaan filayaa barnaamij hore inuu kaga hadalay wada hadal dhex maray Axmed Madoobe iyo Farmaajo oo muddo saacado badan qaatay way madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo madaxweynaha dawladda federaalka ee dalka Soomaaliya horta xoog iyo xoolo wuxuu hayayba dagaalka Axmed Madoobe isugu geeyay xoog iyo xoolo iyo xeelad wax allaale iyo wixii uu hayay waxba kala ma harin nooc dagaal oo uu san la gelin ma jirto Axmed Madoobe isna sidoo kale musbu dabada la galay isdifaaca hayay inta kolba wax unbu maartay xarigii la xidhay uu sii furahayay aakhirkii waxay gaadhay in gobolkii Gedo laga faramarojiyo oo ahaa barqo cagaha dhulka loogu dhuftay ciidankii Jubbaland oo xagga iyo waxaan ku dhahay Kenya la isugu geeyay wasiirkii amniga ee Jubbaland oo wasiirkii ugu awood badnaa ee xataa la aaminsanaa inuu ahaa yani shakhsiga ugu awood badan Jubbaland ilaa ay haatan meel uu ku sugan yahay kama yaqaan meelaha uu wareega oo haad geed waay buu noqday taasi waxay muujinaysaa ama ku tusinaysaa dadaalkii dawladda federaalka ah ay ugu jirtay maamulka Jubbaland inay kaga takhalusto ay iyadu samaysato maamul ay ku qanacsan tahay amaba ay rabto de waxa uu moogtahay rag dagaalamay waxa weey nin walba awood u leeyahay buu isticmaalayaa waxba la isuma reebanayo madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo dhammaan wixii dadaal iyo xoog iyo xeelad iyo xoolo ahaa ee uu dagaalkii Jubbaland ku bixiyay aakhirkii uftada dhulka ku dhuftay waa looga itaal roonaaday noocay dooni ba ku imaatay itaal roonida ma aha markaan leeyahay waa looga itaal roonaaday in Farmaajo laga itaal roonaad ka wada xaqii wixii lagu dagaalamay muhiimaddu waxay ahayd in Axmed Madoobe meesha la dhaafiyo mar haddii Axmed Madoobe uu aqoonsadayna waa laga adkaaday meeqa laga joogaa maalinkii Axmed Madoobe uu yiri madaxweynana
ugu yaraan 10 bilood 10 bilood soo maaha 10 bilood wax dagaala oo farmaajo uu la haray ma jirin dabada iska maray ha ciidanka Soomaaliya ee la dhisay ee dawladdu ay dhistay wixii ay ahaayeenba waa la soo qaaday waxa la keenay Gado iyadoo diyaarada lagu soo daabulay jidka mari karin al-shabaabna ay afgooyi joogto Soomaaliya garan waxaa la bilaabay ciidankii Jubbaland ee joogay Gado askari walba in lacag la siiyo oo la ka soo bax Jubbaland yani xoog xoolo iyo xeelo saddexdaba waa lagu la diriray waxaas oo dhan waxa loo sameeyay waxay ahayd wax kale ma ahayn maamulka Jubbaland la burburiyo ma ahayn laakiin Axmed Madoobe in meesha laga saaray ahayd madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo markii xilligii ololihii doorashada caadiga ahaa ee Jubbaland uu socday ra'iisul wasaare Xasan Cali Khayre uu yimid magaalada Kismaayo ee uu noqday heshiis dhameystiran bay gaadheen Khayre iyo ninka la yiraahdo Axmed Madoobe heshiiska dhameystiran wuxuu ahaa in doorasho xor iyo xalaal la qabto dawladda federaalkuna kaalinta ay ku leedahay ay ka qaadato Soomaaliya garan waxa ka dhiman heshiiskaasna madaxweynaha la isla tago Farmaajo oo madaxweyne Farmaajo inta la isla tago saddexdooda oo wada jooga iyo guddoonka aqalka sare ee baarlamaanka in qalinka lagu wada duubo Axmed Madoobe doorashadaas hal cod hadii lagaga adkaado inuu iska tago wuuna ku qanacsanaa markuu meesha tagaa Farmaajo wuxuu yiri no ma aqbalayo buu Axmed Madoobe ha iska tago doorashada ma geli karo Axmed Madoobe waa kii filimka bilaabay markaa cusub ee wax kuumada la yiraahdo samaystay Kismaayo ku shiriyay dagaal yar yaraysi malaha moogtay noocii lagu la diriro baad ula dagaalamay adiguna u dagaalamay moogtay waa kii ay doorteen ee la yiraahdo anaga isaga matala soo garan halkaas yuu dagaalku ka soo bilowday xabad iyo dhiig inuu daato waa tii madaxweyne Farmaajo uu ku xijiyay aakhirkii haddana maalmo dhaweyto oo dhan wada hadal baa u socday waan sheegay way wada hadleen waxay laga wada hadlahay waxa kamid ahaa madaxweyne Farmaajo laba qodob ayuu ku dhaganaa kolka isaga iyo Axmed wada hadlayeen isaga iyo Axmed ay wada hadlayeen ha maamulka gobolka Gado ee dawladdu ay dhistay inuu sidiisa ahaado macallimo ha oo aan la taabanin madaxweyne ku xigeenkana in la bedelo koobaad Maxamed Sayid Aadan ha labada qodob ee ugu muhiimsan ee madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu ka doonayay ninka la yiraahdo Axmed Madoobe taas ay ahayn waxaan xog ku hayaa marka in uu aqbalay ninka la yiraahdo Axmed Madoobe maamulka gobolka inaan la taabanin uu aqbalay laakiin tan Maxamed Sayid Aadan wuu diiday aniga iyo isku mar baan tagaynaa buu yahay ma kala harayn way soo garan warag isla soo jabay oo soo garan aniga ninkaas oday isku mar baan baxaynaa buu yiri ma kala harayn buu iyo odan kale meelaha wareegahaya maya janan ha marka ala ayati xaal dawladda federaalka Soomaaliya waxay soo saartay xalayto wareegtay soo saartay madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu ku sheegayo in muddo 2 sano ah oo ka soo bilaabanaysa maalinkii la doortay in ay aqoonsanayso dawladda iyada sanad weyba tagtay sanad tagay loo aqoonsanaya oo kal goor aan la aqoonsanay ha su'aalaha moogay dad aqli leh inaad wax u sheegayso oo yaa muhiim ah inaad ka fikirto moogtahay madaxweynuhu dadka Soomaaliyeed wuxuu la hadlayaa sidii dad waalan oo kale waxa fahmay ha wuxuu yiri sanadkii madaxweynaha uu karigi madaxweynaha isu soo ahaa Axmed Madoobe ee gadaal ugu dagaalamay ha sanadkii uu karigi madaxweynaha isu soo ahaa waa u aqoonsanaynaa iyo hal sano hadhay marka macquul ma noqonaysa ardaas tamaya waxa hadda joogan baa laga bilaabay wixii tagay way tageen iyaga way tageen laakiin waxa hadda jooga muhiimadu waa waxa hadda jooga in laga hadle wax tagay in maaragtay hadda la keeno shar iyo khayr waxay lahaayeenba way dhamaadeen Soomaaliya wixii tagay hadda la rabo inuu ka hadlo yiraahdo ama sanad baan aqoonsanaynaa ama 8 bilood wuxuu isagu kolba rabo laakiin sanad tagay iyo sanad soo socda yaan maxaan ku yiraahdaa aqoonsanaynaa isagu ma sii joogayaa bay ka dhigantay horta Soomaaliya garan madaxweyne marka Maxamed Cabdullaahi Farmaajo sidii qof waalan buu wax noogu sheegay Soomaaliya garan laakiin kulli muhiimadda baan ka raacaynaa waa madaxweynaha qaranka Soomaaliyeed waan tixgelinaynaa kuwana dheeraanayno laakiin madaxweynaha wuxuu sheegay muddo 2 sano ah inuu aqoonsanayo maamulka Jubbaland hadda uu garwadeenka ka yahay Axmed Madoobe wixii ka dambeeyana la qaban doono doorasho maxaan ku yiraahdaa reer Jubbaland ay qabsanayaan kulli waxyaalahaasi iyo qaabka ay u doorashada u dhacaysa iyo waxaas waa un gooni Jubbaland iyada naftirkeedu waxaan filayaa si rasmi ah uga mayna hadlay laakiin way ka hadli doontaa laakiin
maaragtay mas-uuliyiin hoose oo ka hadlay waxba kama jiraan bay yidhahdeen warkaas maxaan ku idhahdaa waa ku meel gaadh daas waxba kama jiro way diideen waa ku qanci waayeen soo aan garan dee hal sano ay soo dhaafeen in loogu daro in 2 sano looga dhigana halkaas sano shar iyo khayr wuxuu lahaa iyo way soo moodeen oo yaraan waxay ahayd inuu dhawr hal sano oo maaragtay aan 2 sano hadda ka bilaabanaysa maya xitaa hal sano sanad uu tagay soo maaha hal sano ku meel gaadh hal sano oo ku meel gaadh oo maxaan ku idhahdaa ay qaab kale ula dagaalamayaan inay farsamaan wixii sana ay siiyaan iyo wixii ka maqnaa muddadii dagaalka ay kula jireen lacag badan baa odaga meesha kaga baaqday soo garan xitaa kuwii coronavirus baa ka baaqday wax badan baa xagga ka jira wixii siina inay u keenaan ay dhahaan halkaan sanana waxa waa wada dabaalanaynaa wixii ilaahay ina kala siiyaba kulli dagaal uma yaraan doona farmaajise waxay tahay isagoo horta ma soo noqon doonaa xilligan marka farmaajo iyo axmed oo intaa soo dagaalamayay hadda oo wadankii qalalaasa siyaasadeed oo doorasho ka jiro maxaa keenay in warqadda la soo saaro farmaajo meel ciduu soo istaagay odaygii waara ahaa waa ka debelaayada ku dhigay muddo cadhaysnaa oo aamusnaa moogta oo uusan xitaa weligii shir jiraayad qabo miyaa artay waaro shir jiraayad qabta isagii farmaajo waa isku mid midkoodna shir jiraayad ma qaban sidii madax looga dhigay soo garan maxaan ku idhahdaa odayga waara ahaa waa soo kacay odayga dee mayna haynin tabarxumo iyo talaxumo toona ma haynin nin la cadaadinayuu ahaa isaga iyo axmed madoobihii dagaalka lagula jiray isku mid bay ahaayeen 2 booladood oo lacaga lama siinin waare sidaba lacagta dowladda madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo dagaal buu u isticmaalayay maamulada xasiloon xitaa baydhabo markii lala dagaalamayo nidaam meesha ka jira ee la ridayo yaa lacagtu ay baxdaa kadib kii meesha la keenayna waxaa la yidhahdaa niyahu lacag waan kugu soo saaray ee shaqayso adigu danahaaga qabso soo madaxweyne kaamaana dhigin hore u soco waxay tahay lacagtaadna weydiinaysa adaa madaxweyne kaa dhignay qofkii si un alla unbay wax ka noqon bade meel cidla ah oo dhiig ku daatay oo dhibaata ka dhacday baa mid walba madaxweyne looga dhigay mugti waad ogeyd cabdullaahi cusuble madaxweynihii hore ee hirshabelle يعني شن فرودي على علبة لقى توري ماشي كان مركي لكن وحال السؤال ماشي كاجا ما نقاش شريف نسقب على لي ما شريف ده سوى الوقت دعس قبل ديار الصاري مركي حريف كان كلا لكن ميدو مركي لكنه نيهو أدو حال ليسو مدحوينه كمان نادين محيد نويدين يسال dagaalkaagii iyo xarbigii lagugu soo saaray bay lacagta ku baxday dadka canshuurta ka soo aruursay Soomaaliya dadka hadda jooga marka madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo aan u soo noqdo hawshan hadda ku kaliftay inuu axmed madoobe aqoonsado kow horta isagoo meel cidla taagan buu sarkay oo garabkiisii baa waxyaalo badan ka baxeen waare waa ka furka tuuray galmudug qorqor ninka dheer sidii la moodahay uu noqon waay معارض دم بهاستا قشطة wuxuu anigu maamulka galmudug baan mas-uul ka ahay buu yidhi filla soomaaliyana soomaaliya ay mas-uul ka tahay marka tayda ciduna iguma xukunto iguna igu maamulo anaa saan rabo u maamulayo waa ay soo saarteenoo waa ay keenteen soo maaha maca salaama wax awaara iyo wixii axmed madooban keenayaa buu dhuusa mareeb soo gar odayga farmaajaha soo meel cidla taagan buu arkay waxaa ku soo hadhayba muxuu baydhabo cabdi xaashina waa ka cabdi xaashina waa ka dhinac u booday shir degdeg ah la qabto shirkaas haddii uusan imaan xitaa uu qabsoomi oo majority-ga laga raacay haddii ay yimaadaan 5 maamul goboleeda koonfur ka dhisnayd 4 kamid ah haddii yimaadaan baydhabo iyo filla soomaaliyaba waa laga maarmi filla soomaaliyana mandate bay leedahay maamulada markay wax ku heshiiyaan iyo maxaan ku dhahay qoladan saamileyda la yidhaahdo dee farmaajo meel cidlaan buu soo istaagay si uu marka taa uga gaashaanto yaa duruufo badan keenay inuu Somaliland wax badan u ogolaado inuu Axmed Madoobe u ogolaado inuu madaxweyne yahay in maxaan ku idhaahdaa gobolka Banaadir iyadana maxaa la yiraahdo waxaad leedihiin 7 xubnood oo saamile maxaa aqalka sare ah leedihiin oo lagu qaybsanayo hanaankii 4.5 lagu qaybsanayo waa waxyaalo fara badan dhammaan waxaas oo dhan waxay salka ku hayaan ololaha doorashada ma aha wax madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo isagoo ku qanacsan oo hanaankii dawliga ahaa ee Soomaaliya u danaynaya iyo wada jirkii ummadda uu fulinaya maaha waa duruuf iyo dan kugu kaliftay baa la yiraahdaa soo garan madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo marka daba qabasho ma u noqon kartaa weeye marka ficilooyinkanu
su-aalaha isweydiinta mudan hadda dad badan ama aqoon-yahanka ama waxgaradka ama khubarada siyaasaddu ay isweydiinayaan ba waxay tahay dabaqabasho ma noqon dabaqabasho ma noqon kartaa madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo taageerooda hadda uu haysto aad bay u hooseysaa aqoonsiga axmed madoobe ma suuragal ma tahay inuu taageero ku xoogaa buu soo kordhinaya ha xoogaa buu soo kordhinaya odagu waa isdabcinayaa isaga naftirkiisa waa la aqoonsaday soo maaha wax badan buu ka tanaasuli ha loo kordhiyo inuu dhaho waa suuragal waka way oo waxa hadda ugu badan ee hadda axmed madoobe iyo laga rabo puntlandna mar haddii axmed madoobe la aqoonsaday iyadana way iska dabci iyaduna way dabci haa in maaragtay inta laysu yimaado la yidhaahdo bal sanad ha loogu daro oo wax suuragal ah weeyaan way jaamacu waa siyaasad walaalaha jaamacu haddaa isa siiso unbay xagga kale kaaga rugman mooyaane siyaasaddu wahag jaamacu gabagaban joognaa shirkan baarlamaanka aqalka sare waa kuway horey usoo saareen in shir la qabto waa kay haddana guddi u saareen galmudug iyadana waa tay qorshanaysa inay shirkan qabato dani waa kii hore isagu ugu dhawaaqay inuu shirkaa qaban doono lafta garan waa kii bahashii maaragtay xudur kaga dhawaaqaysna inuu shirkaa qabanayo dowladda federaalku iyaduna hadda wareegto tan axmed madoobe la socoto kale ay soo saartay waxay ku leedahay waa in dowlad goboleedyada iyo dowladda dhexe shir isugu yimaadaan shirkaana guddi farsamada soo sheegi doono xilliguu noqon doono iyadana way caddahay iyadana haye dhuusamaree baa shirka lagu qabanaya yaa qabanaya galmudug ninka dheer baa qabanaya qorqor ha hay waka laakiin wax meel kale oo lagu qabanayo ma jirto marka guddiga farsamada sheegay isaga noqon doono guddiga farsamada ma dawladdu way soo saaraysaa guddiga farsamada waxyaalaha laga doodayo weeyaan haddaad maqasho guddi farsamo ajendayaasha shirka la geenayo weeyaan laakiin qoorqoor waa nin horta ninku caadi ma aha isagoon farmaajo la hadlin bu wuxuu la hadlay oo uu ka dhamaystay in shirka lagu qabto galmudug iyo wuxuu ka dhamaystay beeshii caalamka iyo maxaan ku dhahdaa iyo aqalka sare maamulada dhib ma leh isagaa mas-uuliyaddooda ay saaran tahay meesha uu yidhaahdo ha lagu qabto marka guddiga farsamada waxaa weye waxay fiirinayaan meesha ku habboon isagu wuxuu soo jeedinayaa in meel lagu qabto gaalkacyo yuu soo jeediyey soo jeedintiisii koobaad sida aan xogta ku hayo qaybta galmudug ha in gaalkacyo lagu qabto waxay ka qayb qaadanaysaa isu socodka meeshaasna ninka la yidhaahdo qoorqoor nin caadiya maaha waa nin adag weyn ha wuxuu ugu talagalay isu socodka labada daamood ee koonfur iyo waqooyi gaalkacyo in maxaan ku idhaahdaa ay kala xidhnaa ee khadka cagaaran u dhexeeyey in meesha laga saaro in shir soomaali oo dhan ay maxaan ku idhahdaa isugu imaanayso mustaqbalkii iyo masiirka ummadda soomaaliyeed lagu go-aaminayo in gaalkacyo lagu qabto labada bulshana saa ay isugu furmaan oo isugu calolfayoobaadaan oo gaalkacyo aysan noqon hadda ka dambe wax kala xidhan qaabkaasu u dhigahayey sooma garan taladaas marka aqalka sare iyo qoladan beesha caalamka qayb ka midiba way soo dhaweysay way la qaadatay laakiin xoogaa madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo isaga naftirkiisu wuxuu doonayaa in uu saameyn ku yeesho oo waxaa suuragala inuu wareegto kusoo saaro in lagu qabto dhuusamareeb lagu qabto halkaasna uu maxaan ku dhahdaa shirku uu ka dhaco guddiga farsamadana isagu uu maxaan ku idhahdaa uu magacaabo oo guddiga farsamada ay halkaas ka howlgalaan waa suuragal weeyaan laakiin qorshaha qoorqoor u deganaa wuxuu ahaa in gaalkacyo lagu qabto gaalkacyo iyadoo ujeedooyin badan la fiirinayo adu markaa soo duubto waxaad leedahay shirku gaalkacyo shirka muhiimadiisa ilaa iyo hadda xogaha rasmiga ah ee aan hayno shirku inuu galmudug ka dhacayo weeyaan shirku waa inuu galmudug ka dhacayo ma dhahay ama dhuusamareeb buu ka dhacaya ama gaalkacyo ka dhacaya laakiin shirka galmudug buu ka dhacayaa shirkaas galmudug ka dhacayana waa suuragal madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo inuu wareegto ku magacaabo oo uu yidhaahdo dhuusamareeb ha lagu qabto ila waa madaxweyne qaranka soomaaliyeed iyo in loo tixgeliyo rabitaanka maamulka galmudug ee shirka marti gelinaya oo la dhaho idinku doora meeshii uu shirku ka dhici lahaa ama cadaada ha noqoto cadaada waa magaalo caasimada weeyaan oo wax walba laga heli karo dhuusamareeb markii la yidhaahdo waxaa uga habboon cadaada uga habboon xitaa gaalkacyo cadaada uga habboon soo garan cadaado waxay ka mid tahay magaalooyinka 10 sano oo ugu dambeysay aad u dhismay ee ka midka ah magaalooyinka hadda maaragtay markii Soomaaliya la yiraahdo dhinacan amniga iyo dhinaca dhismaha iyo dhinaca dhaqaalaha dhan walba ka kobocday ee ka kortay ee lagu tilmaami karo mid ka mid ah magaalooyinka ugu horeeya Soomaaliya marka haddii maamulka galmudug loo doorsiiyo sida aan sheegayba isaga oo ujeedooyin kale madaxweyne Axmed Cabdi Kaariye Qoorqoor wuxuu qorsheynayay in gaalkacyo lagu qabto aad baad mahadsantahay jaamaco waayahay halkaasaan ku joojinaynaa barnaamijkaasi qaybtan dhabka hadal ee aan kaga hadlayno
arrimaha Jubbaland iyo warqadaas ay soo saartay dowladda dhexe ee federaalka Soomaaliya waan ogaan doonaa arrimahan isku wada cakiran halka ay ku biyo shubtaan inta aan barnaamijyadan kuwa la mid ah isugu soo noqon doono waan u riyaa jaamacoodi kaga tagay nabadiino wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh